بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta waxaan baranaynaa cashir ku saabsan network iyo ubiquity shabakada ubiquity qalabka ay soo saartay station M5 ayaan halkan ku baranaynaa hadduu yahay nanobin iyo nanobridge iyo station M5 hadda maanta waxaa weeyaan ubiquity aan ku baranaynaa oo M5 ah marka aan isla fiirinayna sidii configurationkeeda loogu sameeyo ama configurationkeeda loo sameeyo waxaan aadaynaa waxaan isla fiirinaa waxaan hadda maanta dhex maraynaa waa routerka waxaan sameynaynaa routerka waxaynoo dhex yaala IP static maxaa waaye ayadha waxaan ka dhigi karnaa dynamic oo dynamican waxaa waaye markii qadka la keeno automatic ha u helo isu gelin marka static laga dhigayana staticana waxaa waaye marna IP address qadka lagu helaa la gashtaa marna anteenada loogu dhex gudbayo oo waxaa waaye oo access la maraya ama boos loo dhex maraya boort la dhex maraya god la dhex maraya ay noqonaysaa routerka marka anteenada u soconno anteenada oo ubiquity 5 ah M5 ah waxaan leenahay marka waan isla fiirinaa configurationkeeda si loo configuration gareeyo ubiquity M5 hadda waa waxaan leenahay 192.168.1.20 oo default ah defaultiga ay shirkadda ku soo saartay waa .20 hadda inta waxaan continue to the web recommended kaasaan leenahay markale ay noo soo saarayaan waxaan isticmaalayaa waa anteenadii hadda guriga waxaan configuration ku sameynaya ama barnaamijyada waxaan rabaa in khad ku xiro inta waxaan leedahay kor maxaa UBNT kale UBNT waxaan dooranayaa channel intaan waa dooran kartaa midkaad rabto waxaan ka dooranaya aniga waxaan hadda rabaa inaan isticmaalo United Kingdom waxaan leeyahay halkaas sagiisaar logan leh marka waxaan baran doonaa dhowr face oo leedahay laakiin si maanta face ka mid ah ayaan baranaynaa hadda face kugu sahlan oo ay leedahay maanta ka baranaynaa anteenada waayo dhowr face oo kale oo ka duwan ah waan noo soo joodin doonaa casharadeeda ama loo programmiyo ama programka ay u qaadato kaasna dibaan noogu keenayaa oo dibaan nooga soo joodina casharadeeda insha allah waxaan raadinaynaa maanta waxaan u socdaa waa anteenadii waxaan programminaya waa anteenadeedii waxaan leeyahay channel 10 channel meeshan waxaa noogu qoran 40 inta waxaa noogu qoran out of 20 and 40 wax dhaafsiisan 20 iyo 40 wax xagga soo dhaafsiisan maga hartisa waxa waaye 20 waa ka badan 40 waa ka badan kartaa marka uu yiraahdo 20 40 waa 40 MB uu qaadaya 40 megabyte 20 uu yiraahdo 20 megabyte uu qaadaya haddaan fiiro 30 megabyte 10 megabyte uu qaadaya ama 10 MB soo taqaan 8 MB uu qaadaya 5 xagga jirtan 5 MB uu qaadaya wax kale kuma qaadaya laakiin markii ay tahay inaan 5 iyo 5 aan isticmaalayno kala wuxuu sameeyaa thickness wax yiraahdo anteenada waa signal dheer ismaynaysaa toogashadu way dheeraan kartaa maadaama markuu balac ku shaqeynayo marka dhudhuubni ku shaqeynayo kala duwan yihiin hadda waxaan isticmaalaynaa channel 10 waan rabaa inaan ku shaqeysto waan ka dooranaya waxaan leeyahay marka channelka igeli changean leeyahay marka ibedel ilaan hadda ani waxaan isticmaalayna u socdaa wuxuu weydiinayaa passwordkii
أنا باسورد كرو هذا بعد قلنا يو بي ان تي أما أدمن labada isticmaali karaa hadba ana hada UBNT aan isticmaalayay maadaama dhibarta uu soo ahaa configuration ka wada waxaan ku guda jirnaa configurationkii ama configuration si loogu shubo ama loo configuration gareeyo stationada ama anteenooyinka marka waa kana anaga shaqadu hadda hore noo qabanaysaa waxaan isla fiirinaynaa marka waxaan leenahay sergin ugu dir muxuu ugu soo dirayaa haajir ama engineer haajir waxaa waaye SSID engineer haajir ilaa waa aniga waxaan samaystay waa hal anteeno oo anteenada kale ku xiran waa access point station أنا هذا واحد تاجنا هو station كي وهذا بر configuration كسمينه هو station ما هن access point تيجا ما هن هذا station كحوا أنتنا كحر مايا أنتنا سو حوا signal كده minus 63 أيضا له log up أنا عشان باسورد كأني استعماله أنتنا ده كل حر مايا دور في سؤال استعمال دونا إن شاء الله وأنتوا دونا أو كحل ليرنتان وهذا سوف ما دام هذا أنتنا عن programming تاعن قوته أتيان كو استعمال لها جورج استعمالها جورج وعلى هذا change apply مركب وحن لنا هاي configuration وحن لنا مركان وحن كو حرني وعندها كسو حرني channel kan aniga aan leeyahay abaalkii aan anteenadan oo access point-ga aan ku xiranay anteenadan oo log up aan ku niray select ma dhigana labada waa ku niray hadda nagu xiran waa kana passwordkiisa halkaas nagu muuqdo waxaan isticmaalay hadda aan nagu log gareysanta maadaama magacan anteenadii askara SID ay lahayd waayo marka hadda ku nagu xirantay magaca address-keeda waxa dhan waa kuwan maadaama anaga waxaan isticmaalay channel kan ku raadinay channel ay nagu xiran tahay hadda waxaan diina marka advance waxyar noqon nagama dheero waxyar jagno si waxaan dhigi karnaa engineer haajir my home haajir aan leh my haajir home waxaa kaloo isticmaali karnaa halkaan akun kale si gelin karnaa aan leenahay anagoo dhihi karna admin passwordkii waxaan sii gashanayna passwordkii kale oon gashan lahayn intaan isticmaali karnaa laakiinse mid hore nagu jiray oo aan u isticmaalay UBNT-gaas ma raba marka inaan ka soconayaa waxaan tegaya halkaan marka hadda waxaan u isticmaalaynaa si fudud waxaan leeyahay IP-ga dambe maadaama IP address-ku kan yahay IP-ga numberka dambe ka bedelnaa markuu 20 yahay waa default waa siduu shirkadda ay ugu soo saartay 20 ku yahay marka ka bedelnay waa 12 ka dhigtan waa IP gaar ah markaasaan wax ka bedelay markaan configuration kala tagayno shaqooyin fara badan halka ka dhacay routerkan iyo sidii waxaan loo isticmaalay dhanaan arki doonaa iyo antooyinka soo shaqeeyaan
hadda apply nere waa kula xiranay oo apply gareeyay waxaan sameynaa marka intuu hadda apply-dan uu maqan yahay waxaan gelaynaa anteenada rabnaa in ka saarano routerka rabnaa IP addresska ku jiro inaan ka saarano maadaama si aan internet u helno waxa ku jiro admin kana nagu jiro waxaan leenahay static u ahaa ilaa marka hore waxaan u talagalnay anteenadan u dhex marno oo sidaan u gaarin anteenada aan u gashan IP-gan static ah hadda waxaan leenahay dynamic na automatic ha noogu keeno automatic markaan waa inuu noo keenaa internet isleegna marka aan dib ugu laabano in soo qabsatay in kale sidaan aragna haddaan ka save dhahin hadda waxaan haysanaa process waxaan leenahay advance kasoonaynaa maadaama kan maana dhihin safe maan dhihin waa static waa hadda ku safe garaysan yahay dynamic safe weli ma dhihin haddii aan safe dhihi lahaa dynamic kan ima shaqeyn anteenadan ma galeen uma soo aadeen anteenada hadda waxay haysataa T65 signal ay haysataa waa 64 على وتر قلا فرتن صدم صدم فرتن minus conton minus 50 64 واسك اوكي waxa wax mid dhibayso transmission kama soo daro marka anteenada halkan waa oo ka dhacaya capacity labada anteena laga fiir labada hadda 91 92 ga iyo 73 ga 73 ga ku 80 ka soo degina loo targalay transmission ko ila internet ku kacsan yahay oo loo targalno fiican yahay alaga ogaada inuu 80 ka soo degin markii capacity-gan ku fiican yahay sidoo kale labada marka way wataan oo internet-ka ay ku shaqaleeyeen waa labada xambaarayaasha ah capacity-ga iyo armax capacity-ga iyo transmission CCQ transmission-kaas marka waxaan ka saaranaynaa si aan internet u helno static IP-gan aan ka saar dynamic aan leenahay kadibna safe aan leenahay marka hadda uu ka baxay IP-gii dynamic dana detect waxaan ogaanaynaa walba signalkaan aan ogaanaynay waa ka baxna oo korsanaynaa hadda waa noo yimid waxaan ku helaynay IP-ga aan internet ku helaynay kan maxaa waaye waa dynamic oo internetka daba noo jooga statigiisa aan ku galnay anteenada ku dhex marnayn waa sidaan oo anaga gashan dynamicgiisana waa sidaan marka maanta halka haynu joogto waqti kale aan si kala galaynaa oo ku sii xilaaranayna insha Allah dhowr qaybood oo kale aan ka diyaarinaynaa anteenooyinka